iyadoo Trump uu leeyahay ciidanka aan keenay bariga dhexe saddex laab ayay ka badan yihiin kuwii Nicolas Maduro gacanta ku soo dhigay Caracas galay oo Iran hadda ay suuragal tahay inay tallaabo ka qaadaan haddana dhinaca kale waxaa muuqanaya in ay ciidamada Iran ay leeyihiin inagu ciidamada Venezuela ma nihin ciidamadeenu maaha kuwa hurda maaha kuwa mandooriyuhu uu saameeyay ciidamo aan ishooda libiqsanayaan haynaa bay leeyihiin kuwaasi oo wax kasta u diyaarsaday in ay dagaal galaan laakiin jawaabaha soo baxaya waxa la leeyahay waxay muujinayaan in ay suuragal tahay bilowga dagaalka in uu qarka soo saaran yahay oo ay suuragal tahay xilliga ugu sokeeya inay wax dhici karaan Anfirio wargaara oo ay qorayso wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP la yiraahdo taliyaha guud ee ciidamada Iran General Amir Hatimi ninka la yiraahdo ayaa ku hanjabay in ciidamada dawladda Iran ay bixin karaan jawaab dhameystiran haddii lagu soo duulo wadankooda waxa uu sidoo kale isagoo ka hadlaya telefishinka qaranka ee dawladda Iran uu yiri ciidamadeenu waxay diyaariyeen boqolaal diyaaradaha isqarxiya oo droniska ah kuwaasi oo suuragal ka dhigi karaya goob kasta oo lagu soo weeraro in ay jawaab ka bixiyaan marka yaan loo baqin qarankan ayuu sida kale u leeyahay hadalka wuxuu yiri ciidamadeenu waxa ay sameeyeen wax kasta oo ay ku diyaar garoobi karaan haddii ay noqon lahayd kuwa cirka haddii ay noqon lahayd kuwa dhulka haddii ay noqon lahayd kuwa gaarka ah ee loo yaqaan Fayla Qalqudus iyo haddii ay kuwa kala noqon lahaydba laakiin Iran waxa la leeyahay waxa naafeeyay oo saameyn ku yeeshay dibadbaxyadii dhacay maalmihii ugu dambeeyay kuwaasi oo salka ku hayay dhibaatooyinka nololeed oo gudaha wadanka ka jira halka marka ay taxliilinayaan hay'adaha nabadgelyada ee dalka Iran ay leeyihiin waxa dhaxmaraya kooxo sirdoon oo kala duwan oo shisheeye kuwaasi oo doonaya in ay nugleeyaan dawladda ninkan markuu intaa yiri kadib ilaha sirdoonka Israa'iil ayaa soo gudbiya malaf xasaasi ah oo ku saabsan haddii wadankaasi dagaal uu ka dhaco maxaa dhici karaya waxay yiraahdeen waxa dhici karaya in dagaalkan uu noqdo mid jiitama isla markaana ay birlab noqdaan ciidamada ilaalada kacaanka ee dawladda Iran dhinaca kale wasaaradaha amuraha dibadda ee midowga Yurub ayaa saacadaha soo socda suuragal noqon kara inay yeeshaan shir degdeg ah oo ku saabsan waxa laga yeelayo ciidamada ilaalada kacaanka Iran waxay leeyihiin waxaynu ku dareynaa liiska argagixisada si ay qayb uga noqdaan dhibaatooyinka ay geystaan in loogu ciqaabo arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo saacado ka hor mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Iran liiska argagixisada ee midowga Yurub la galiyay taasi oo muujinaysa in dalkaasi uu ama wadamadaasi ay qayb ka noqonayaan dagaalka inkasta oo Yurub ay u dig iyo dam leedahay dagaal inay qayb ka noqoto oo durbaba ay sameynayso tillaabooyin degdeg ah haddana ninkii Rajab Tayyip Erdogan uu leeyahay wartalow inta aanay risaasta bilaaban maan war ku dayno waa sida Erdogan uu isaga aaminsan yahay saacadii la soo dhaafay waxa uu la hadlay Mas'ud Pezeshkian madaxweynaha dawladda Iran sida ay ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu News Agency waxaana sidoo kale uu la waramay ama uu la hadlay qaar ka mid ah madaxda adduunka isagoo oranaya bal ka warama haddii Ankara ay dhigto gogol nabadeed oo wada xaajood laga gala arrimaha nuclearka sidoo kalena malafka miiska la soo saaray ee qayb ka noqdaan gantaalaha baalistiga ee dawladda Iran arrimahaasi haddii ay dhacaan waxa uu leeyahay gobolka bariga dhexe waa la badbaadin karayaa hase ahaatee hadda sida ay wax u socdaan wax la aqbali kara maaha Trump marba geed ayuu madaxa gelinayaa oo waxa uu leeyahay miyaan weeraraa miyaan go'doomiyaa mase suuragal noqon kartaa sidii aan Nicolas Maduro u soo qaatay oo kale qamanina soo qaato haddaba wararkaasi ayay saacadihii ugu dambeysay warbaahinta Mareykanku ay qorayaan iyadoo Turkiga uu shalay dalkiisa ku casuumay wasiirka amuraha dibadda ee wadanka la yiraahdo Iran Abbas Araghchi isla markaana uu kala wada hadlay sida xaaladan loo soo gabagabayn karo oo xal kama dambaysa loo